anigu badin maayo saraakiisha wixii hore wixii warbixinaha iyo wixii nidaamka saraakiisha iga horeysay baa ka hadashay laba qodob baan ka hadlayaa kaliya marka u horeysa kuwa taxfadan saddexaad oo halka ka baxday iyo kuwii horeba waxaan u dardaarmayaa inay wixii ay barteen anoo ku kalsoon inay fulinayaan inay dadweynaha sida saraakiishu uga soo hadashay sool iyo sanaag iyo cayn inay uga faa'iideeyaan intaasaan halkaa ku soo koobaya anoo runtii ku kalsoon boqolkiiba boqol inay fulinayaan taa waxaan kaliya ugu noqonayaa oo aan rabaa halkan inaan kaga faa'iideysto dadweynaha sool iyo sanaag iyo cayn walaalayaal horta meelaad joogtaanba khayr baan idin rajaynaya waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan xagga xadiisna waa laynoo sheegay ha kala teginnina in dhoweedintii maamulada hareeraha inaga xigaa yimaadeen waynu kala tagna waxaan ugu baaqayaa dadweynaha sool iyo sanaag iyo cayn inay midoobaan oo u midowno dadka sool iyo sanaag iyo cayn deegaamada iska leh aayahooda inay u midoobaan midnibaan lambar wan ugu baaqayaa taa markaan ka gudbo qolyahan hareeraha inaga xiga tabar inaguma dhaawaan laakiin waxoodii bay mideeyeen waxaa la odhan dariska ama ku dado marka aan waxayna midayno cid inaga tabaroon iyo cid ina magaciisiya iyo cid ina dhakri kartaa ma jirto dadka sool iyo sanaag iyo cayn meel kasta ay joogaan midnimo walaalayaal waynoo midnimo soomaaliya ha noolaato dadka sool iyo sanaag iyo cayn ha guulaysteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantiin